toddobaadkan waxa baraha bulshada aad loo hadalhayay dabcan dad badan ka xanaajiyay wiil sheegay inuu qabo saddexaas oo waliba ha qabo maba xume oo diinta waa ay baneysay waxa uu yiri waxaan isla seexiyaa hal qol halka qolka kalena uu aniga ii hagaajisan yahay dabcan wuxuu sheegay in uu laba qol degan yahay oo ay tabartiisa san ahayn inuu guriyo badan dajiyo dabcan wiilkaasi ayaa baraha bulshada qabsaday sawirkiisa iyo waliba saddexda xaas oo wada xijaaban in shareero u wada xiran yahay dabcan sida aad sawirka ka arkaysaan gabdhaha qaar ayaa dhiiga ku karay dabcan sida aan dhihi karo oo dhahayay diinta hadii ay baneysay ma ahan in gabdhaha lagu tagrifusho oo la bahdilo oo sharaftooda ay hoos u dhacdo maxaa la dhahaayay oo ay dadka ay aad ugu xumaadeen marka wuxuu ahaay hadalhayntii baraha bulshada carab gooniya waxay ka muujinayay hablaha dadka qaar ayaa commentiga ku soo qorayay hadii aad kuriyoon kartid inaad saddexaas guursatid waad ka dhabeyn kartaa laakiin warar kale ayaa soo baxay isla toddobaadkan gudihiisa oo sheegaya in wiilkaasi uu been ay ka tahay oo ay branki sameynayeen si ay adduunka u wada ogaadaan ama ay magac u sameeyaan dabcan waxay ku soo gabagabowday in arintaasi la wada beeniyo xitaa dadkii warbixinada ka sameeyay ay dhahaan waan ka xumnahay arinkaasi dabcan iyagii oo dhan waan weydiinay laakiin ay noo wada dhaarteen sidaas ayaan ku aaminay halkaasi aan kaga soo gudubno hadalhayntii baraha bulshada toddobaadkan sidoo kale waxaa hadalhayn gooniya abuuray xaaladda siyaasadeed ee uu dalku marayo iyada oo maanta ee taariikhdu tahay 10 February madaxweyne farmaajo laba beri ka hor ayuu ku ekeed madaxweyneedkiisa oo waxay ku ekeed 8 Febraayo oo isaga la soo doortay mucaaradka ayaa waxay leeyihiin in madaxweynaha imika talada xiligiisu ay ka dhamaatay wuxuu dalka ku sii joogaa inqilaabnimo anakana waxaan ka soo saari doonaa go'aan aanu kaga hadlayno arinkaasi